deeq qalabka lagu isticmaalo guryaha ayaa maanta loo qaybiyay qoysas danyar ah oo gaaraya ilaa 50 oo ku nool magaalada Yagoori oo ka tirsan gobolka Sool. qalabkan oo isugu jiray noocyo kala duwan ayaa dadweynaha ka faa'iideystay ay aad ugu mahad celiyeen hay'adaha wadaniga ee saaro iyo ururka taakulaynta bulshada oo soo gaarsiiyay qalabkan iyo hay'adda MBA oo maalgelisay. mas'uulka ururka soo gaarsiiyay deeqdan injineer Cali Xuseen ayaa ka hadlay in dadkii nasiibka u helay deeqdani ay qaateen bixiyay hay'adda la MBA ayaa bixisay anaguna waxaan u soo gudbinay kaalmada deeqda kontonka qoysa ee nalfur atamiska ama alaabta aan cuntada ahayna khadiifado marakanacooyin booste faynuuso digsi kalaadhi qaadooyin midis saxan sufuro iyo jirikaano alaabta tirada inta leeg leh ayaan ugu deeqnay in maxaa dadweynaha dadka IDB-ga ee barakacayaasha iyo dadka federaalitiga ee waxba haysan marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha in ay naga gudoomaan muxuu ahaay alaabta xadiga leh. maayarka degmada Yagoori Xuseen Maxamuud ayaa isna dhinaciisa soo dhaweeyay deeqdan qalabka guryaha loo qaybiyay qoysaska danyarta ah wuxuuna ka codsaday hay'adaha iyo ururada kale inay ka qayb qaataan horumarka degmada si wanaagsan ha u gudoomo ha u qaato waxaan rajayn doonaa insha Allah waxa la nabadda waxa la isku xidhnaanta waxa la isu tanaasulka dadkiina jilicsan weey baale kuwa indhahala kuwa curyaamada kuwa dhagahala iyo wixii la mid ah kuwa goblankan caruuraha lahayn dadka oo dhami ma wada laha mana gaarayso. ugu dambeyntiina dadweynihii nasiibka u helay inay deeqdaasi ka faa'iideystaan ayaa halkaasi loogu qaybiyay. dhaqayna hay'adda iyo intiina wada iyo hogaamiyayaasha ballanada Ilaahay aan noo barakay. Cabdiraxmaan Cali Ducaale Home Cable TV magaalada Yagoori.